waraysi baan yeelanay mataqaanaa waxaan ka hadlaynay in laga qayb galo doorashada soo socota ee 2016 arintaas oo mataqaanaa aad loo falanqeeyay waxaa la isku raacay 6 xisbina waxay ogolaatay in mataqaanaa laga qayb galo doorashada xisbina waa diiday xisbina mataqaanaa wuxuu yiri dib ha la igu dhigo waxa la sheegayaa in shirkaasi dhexdiisa khilaaf fara badan uu dhacay sidaad sheegtay xisbi waa kan diiday sidoo khilaafkaas bal naga waran runtii waxa weeye in khilaafkaasi ma oran karo kulay wuxuu ahaa khilaaf weyn in xisbi kulay go'aan iska gaadhay ayuu ahaa in kuna talagalay kulay inuu mataqaanaa doorashadaas una mataqaanaa ku qanacsanayn in ujeedooyinka ugu waaweyn uu ku qanacsanayna ahayd mataqaanaa in mataqaanaa la sameeyo laga hortago in waxaan ogsoonahay 10 sanadood in mucaaradku aamusnaa aynana ka soo bixin wax natiijo ah amba murti ay ka soo bixin in markii aan taa aragnay sidii iyagu baxay xisbiga ugu horeeyay ee go'aansaday 2013 in laga qayb galo maantana waxa xaqiiqa oo taala in 2013 ilaa maanta isbedelka weyn ee dhacay iyo dadka mucaaradku maanta sida ay u soo jeedaan iyo shacabku maanta sidii ay matqaana ugu kalsoon yihiin mucaaradnimada waxa kale taala in oo arintaas aan ku sii doorashada 2016 in UMB iyo ESN maaha xisbiyo madax banaan dad madax banaan baa jirta oo doorashada ka qayb galaya marka waxaan eegnay dhinac kasta markaan iska taagnay arinta waxaan u garanay inay muhiim tahay in aan ka qayb galno oonan matqaana meeshaas aanana faaruqin bal ka waran musharaxiintan xaqiina isa soo taagay hadda nooga warantay iyaga waa kuwe saddexda magac waxay ahaayeen kulay matqaana xisbiga BDD-ga oo Maxamed Daawud xisbiga aan matqaana anigu afayeenka kahay oo Umar Cilmi Khayra iyo nin madax banaan oo keligii matqaana isagu socda Umar Shirdoon Abbas saddexdaas yihiin marka saddexdooda iyagana waxa qorshe u yahay inaad kala saartaan hal musharax oo kaliya in aad ku midowdaan saasa sidoo sharciga uu dhigay waxa weeyaan saddexdaas hadii la yiraahdo loo fariisan doona waxaana matqaana ka go'an kulli USNta in matqaana musharax ay ka soo saaraan saddexdoodaas waana lagu kalsoon yahay matqaana in matqaana hal musharax laga soo saaro ma laga yaabaa halka musharax markaad qaadataan in khilaafku andana sii ballaadho kulli ma filayno laakiin waa dhici kartaa waan oran karaa in hadii ay dhacdana kulli waxa weeyaan xeer baa jirta xeer baa matqaana charter baan leenahay in xisbiyadu ay wada saxeexeen in waxa lagu noqon matqaana xeerka lagu noqon xeerku wuxuu dhigayna waa la raaci doonaa insha Allah weynigii hore u sheegay gudidan qabanqaabada doorashooyinka ee madaxa banaan ee Seeniga loo yaqaano gudidaas waxyaabo kala duwan in laga soo bedelo markii hore axsaabta mucaaradku halkaasi ay ku adkeysanayeen maanta waxaad muujinaysaan kalsooniyad ka qayb qaadanaysaan doorashooyinka madaxweynenimo 8 April ka dhici doona Djibouti isbedelkii nagu yimid muxuu yahay mise waxayna kalsooni galiya waa maxay waa runta way markii hore waxaan matqaana kuma aan qanacsanin laakiin sidaan hadeerba soo sheegay in maanta USN kaligeed maaha in xisbi dad madax banaan baa jirta shakhsiyaad madax banaan baa jirta oo doorashada ka qayb galaya in waxa kale oo intaas sii dheer oo matqaana jirta in waxa aan sugayn waxa Seeni madax banaan Seenigaas inkastoo ay matqaana dawladdu sidii looga baahnaa aynan u keenin waa gudiga doorashada ah in sidii aan uga baahnayn inkastoo ay u soo bandhigin laakiin waxa matqaana cadaatay oo jirta in October-tii sanadkiina dhaaftay in matqaana Seeni naloo soo diray Seenigaasina na soo gaadhin in ay dawladdu markaa ay rabtay inaan sidii matqaana wixii aan u baahanahay aan ku dari karno taasina ma ay dhicin shakhsiyaad annaka naga mida ayaa arintaas matqaana gaar u haystay in marka taadirteed waxaan leenahay in shalay waan badinay 2013 iyadoo Seeni jirin maantana mucaaradku uu badin karaa in laakiin mar kale aan ku celinayna maadaama ay musharax madax banaan jiraan taraanka inaan u faaruqino mar rabno shicibkayagi intaan sugayna matqaana in aan cidla aan dhigno oo niraahna maanta matqaana waan ka seexanaynaa waa laga fiican yahay waxaan xasuusinayaa 2013 ilaa 2003 mucaaradku uu aamusnaa wadankuna matqaana wuxuu galay mugdi buu galay 2013 wax badan buu ka bedelay dalka in shicibkuna maanta waxay ku rajoon yihiin wuxuuga inay ritaan